تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkii horumari ummadaada oo aad ka daawanaysaan tv-ga caalamiga ah ee Universal TV. barnaamijka maanta waxaan ku falanqeynaynaa mashaakilka ama jirada loo yaqaan jahwareerka umusha ama niyad jabka umusha ee ay u yaqaaniin postnatal depression. dhibaatadan runtii badankiisa waxay ku dhici jirtay hooyooyinka oo reer galbeedka ah, sida dalka UK. todobadii hooyoba hal hooyo ayuu ku dhici jiray. Americana 10kii hooyo hal hooyo ayuu ku dhici jiray. laakiin waxaa ayaamahan soo badanaya hooyooyin Soomaali ah ama hooyooyinka Asiaanka ah oo ku dhacaya jirooyinkan loo yaqaan postnatal depression. taasi waxay tahay hooyada markay umusho ayaa waxay noqonaysaa qof ayadoo dhan mahsan iyo isdaryeelkii ayay isdaryeeli jirtay isma daryeelayso. canugii daryeelkiisa waa ka gaabinaysaa. ninkeedii xaaskeedii gogasha sariirta ama ayay ka gaabinaysaa. marka dhibaatooyinkan waxay saameyn weyn ku yeelataa lamaanihii iyo caruurtii. dhakhaatiirta caruurta waxay leeyihiin caruurta inta aysan hadalka baran waa ogyihiin inay hooyo murugaysan tahay ayadoo indhaha ka fiirinayo, ama waa dareemayaan inuu aabbo murugaysan yahay. taasna caqabad ayay ku noqonaysaa koriinka iyo caruurta koriinkoodii oo dhinaca caqliyadda iyo wax walbo. marka waa muhim yani hooyada umusha marka ugu horeysa inay ayada isdaryeesho, yani sida caadada ahayd wadamada Afrikaanka ama Asiaanka ama Soomaalida. hooyada markay umusho guriga hooyadeeda ama guriga sodohdeeda ayay 40 maalmood soo joogaysaa ayadoo soo naaxday oo isa soo qurxisay oo yani ayay gurigeeda imaan jirtay. laakiin xoogaa waxaa moodaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha yimid xoogaa yar arinkaas qaar inay ku dhib badan yihiin, ama hooyo kaligeed joogto ama hooyo ku nool magaalo ka fog magaalada Soomaalida ay degan yihiin, taasoo hooyadii aysan helayn yani kaalmadii reerka. marka waa muhim inuu ninkeedii caawiyo, ayada in ninkeedii inay isla fadhiistaan, oo maadaama caruurtii ay kusoo kordheen xaaladdu waa isbedeshay. marka waxaa kaloo fiican inaadan isku barbar dhigin hooyooyinka kale, maxaa yeelay caruurta isku mid ma aha. duruufaha yani reeraha kale haysta iyo midda adiga ku haysta waxaa dhici karta inay isku mid ahayn. waxaa dhici karta canugeeda oo qofkaas inuu ooyeyn isku hurdaayo, canugaagii inuu habeenkii ooyahay. marka waxaa fiican lamaanaha inay isbedelka ku yimid noloshoodii ay ka wada hadlaan iyo siday wax u qaban lahaayeen. sidoo kalena waa muhim mujtamaca Soomaaliyeed, qaraabada, dariska iyo yani markay gabadha umisho in la kaalmeeyo. maxaa yeelay maahmaha waxaa jirto Afrikaan ah oranaysa ubadka xaafad dhan ayaa korisa, yani ubadka dhasha xaafad dhan ayaa korisa. marka waa muhim inay yani hooyada Soomaaliyeed yani inay hadday heli karto qof saaxiib ah ama jiiraan la ah inay ku kaalmeyso umulbixidda si ay ugu soo kabsato hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaa kaloo muhim ah oo aad u muhim ah yani in ay ogaadaan hooyooyinka yani tacabka hooyanimada iyo dhibaatooyinkeeda. yani wax adiga ku khusay kaliya ma aha, hooyooyinka dhan ay taabataa. tusaale ahaan Faatima oo binti Nabi Maxamed Allahumma salli wa sallim alayh iyo ninkeedii Cali ayaa yani waxay u tageen Faatima nabiga Allahumma salli wa sallim alayh u tagtay, waxay tiri aabba waa ku dhibtooday caruurta iyo wixii oo dhan, yani aad ayaan ugu daalay, xataa gacmihii ayaa ka murxay Faatima. marka waxay weydiisay inay khadaamad iyo ay siiso oo guriga ugu adeegto. marka nabiga wuxuu yiri khadaamad kuma siin kara, laakiin waxaan kuu sheegayaa adkaara akhrinayso salaada cishaha kadib oo ah subxaanallah 33, alxamdulilah 33, allahu akbar 34. yani taas akhri si ilaahay kuu fududeeyo. Faatima waxay tiri dikrigaas markaan bilownay ilaahay wuu nuu sahlay, tacabki iyo xoogaa yar ilaahay waa naga yareeyey. marka lamaanihii hooy iyo aabba waxaa loogu baahan yahay
macnaa inay dikirka badiyaan oo ay ilaahay tala saartaan. maxaa yeelay waalidnimada waa aayad ilaahay ka mid ah aayadaha ilaahay sharaf weyn ayuu u yeelay, khaasatan hooyadii. yani sharaf weyn ayaa yani qur-aanka ilaahay marka a fiiriso yani hooyooyinkii ayuu mar walba ku magacaabaa waalidiintii. marka waa sharaf weyn, macnaa sideedana yani jannada ilaahay macnaa waa tacab ayay u baahan tahay. marka waxaan leenahay hooyooyinka yani tacabkaas ku janno taga hadduu ilaahay yidhaahdo. marka aa fiirisaanna gabayada ugu badan oo soomaalida ay tiriyaan waxaa u badan gabayada lagu ammaano hooyooyinka. marka taas waa sharaf weyn oo hooyooyinka ah iyo aabooyinka. marka waxaan idin leenahay tacabka iyo caqabadaha waalidnimada waxay u baahan tahay isgacan qabsi. marka isgarab qabsada. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu waalidiinteena ilaahay kuwa dhintay jannada ilaahay ka baraabiyo, kuwa noolna ilaahu dembigooda dhaafo, cumri dheer oo cibaado leh ilaahayna siiyo. waalidiinta waa muhim, sida yani qof walba oo adduunyada yimid waalid ayaa soo koriyey, waalid ayaa tarbiyeeyey. marka waxaan idin leenahay rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira. ilaahay waalidiinteena iyo waalidiinta muslimiinta oo dhan ilaahay u dembi dhaafo. jazaakum allahu khayran. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. waxaan idin rajayneynaa hadduu ilaahay yidhaahdo daawasho wacan. جزاكم الله خيرا، مع السلامة. تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر، وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر، وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر.